salaanta islaamka maxaad ku tartamaysaa waxaan ku tartamayaa gabay gobolkaad ka socotaa gobolka Hargeysa gabayadu kala duwan ma maansa mise gabayga noocyadiisa kala duwan noocee waa maansageed maaso geed nasiib wanaagsan baan ku rajaynayaa hoyalaay 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 hoye hoyalaay 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 hoye hoyalaay 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 hoye indhaweyd bawaa tan yar dhimay gabaygii dheraaye haddun baan dhutiisii heliyo sadara dhadheere ma dhaliilo aadmigu markaan dhumuuxu yeelaaye dhoodan sidiisii ayaan dhamacda saydhaaye dhoodan sidiisii ayaan dhamacda saydhaaye dhaxal waxaan ka haystaa abwaan qays lo odhan jiraye sidii gaariyaan dhinacyo badan xogo ka dhowraaye xasanganay dhabbadu marin jiraan dhaxa soo galaye xasanganay dhabbadu marin jiraan dhaxa soo galaye indhaweyd xasanganay dhabbadu marin jiraan sooxa soo galaye balaan dhowro meeshay murtidu dhega kulahayde dhagahiina ifura naxwahan dhelitirayaa dhulkanaan ku dhalaane ilaah dhigay macaadinta dhulkan dheelitiraane dhammaan dharabtu ay buuxdo dhulkanhaan haddaan dhowra iyo haddaan ku dheeldheello cidii ka dhaqaajaynine dara ku joogayso inaan xilaha kaga dharanaa mayahayn dhaqaanaya dhulkanaan xornima joognayn lagu dhaliilaynin dhulkaanay nimcadu wadhan taheed malab ka dhuqayso dhulkanay nimcadu wadhan taheed malab ka dhuqayso inaad dhoof ka raacda abaalkii ma dhigahayne aw dhabcaalin meelaad ku tahay dhaqashi xoolaade dhalinyaro intaatuu wakhtigu ka dhur sugayaaye saacaddii dhacdaa maalin bay sii dhammaysaaye dhigga aad u faantidee dhammaan dhugo dhawaqayga dhigaalkiyo odhaahdaan dhahana eegga ku dhaqaaqa dhexda xidha dhammaantii kaco horumaran gaadhno dhulkanaan xornimaa joognayn lagu dhaliilaynin dhilkanay nimcadu wadhan taheed malab ka dhuqayso inaad dhoof ka raacda abaalkii ma dhigahayne haw dhabcaalin meelaad ku tahay dhaqashi xoolaade dhuux geeladoo heli karo dhashi subag haysta sancadaalayu ku dhigdhigin haydha doofaare dhaqan iyo asluub iyo ku dhimo nolol dhammaystirane dhacankaaga maalooha cunin gala dhididkeede haw dhabcaalin meelaad ku tahay wel la dhansado dhulkanaan xornima joognayn lagu dhaliilaynin dhulkanay nimcadu wadhan taheed malab ka dhuqayso inaad dhoof ka raacda abaalkii ma dhigahayne haw dhabcaalin meelaad ku tahay dhaqashi xoolaade dhankaan ugaagun leeyiyo haddaan dhidibka ku sheego dhirigelin ayaan ku wadaa hadal dhammaystirane dhamma iyo hurdaan kula necbahay dhabandhab waceebe dhigdiirisbaan iyo cirqiga dhuuxa hoos maraye jidhaa iyo dhibbaan kula necbahaye dhadhnabareede dhagahaga iyo dhinac marine maankayga dhowra dhulkanaan xornima joognayn lagu dhaliilaynin dhulkanay nimcadu wadhan taheed malab ka dhuqayso inaad dhoof ka raacda abaalkii ma dhigahayne haw dhabcaalin meelaad ku tahay dhaqasha xoolaade waa tahay tartamahaasi waxaan filayaa in badan oo idinka mid ah in luuqda habdhaca waayo gabaygu uu noocyo badan yahay waxaa fadhida guddida gar doontaa nasiib wanaagsanna waan ku leeyahay huro balan kuu baaqo
واحد كل سبايت كي عبد القيس شيء أديكو سيدي وقولوا غينيا dhuxgeel بيت كي عبد القيس كهاد dhaxal waxaan baad ka badway dhaxal waxaan ka dhaxal waxaan ka haystaa abwaan dhaxal waxaan ka haystaa abwaan qays loo odhan jiray قبل ما مركها يو نقولها la dhihi jiray baan uga jeedaa wax halmaan hadalku ma jiro هدول اللي هي شرين أنا ما يعني قبل وناكسن بعد مريسي وشيدا وناكسن بعد كهذا الشيء وطن كات كهذا الشيء لكن واحد نمر هذا كهذا وحنا نقول معلن الله محمد سعدان وحوقا كوير نقو بعض في عنتهاي بعض تعب بدن بعض صارتي أبو أنا ولي بحسطة يوسي وناكسن بعض سوق هذا لكن ميزانك قبل قديم وكنه waad mahadsantahay run aday ku maraysaa baan filayaa haa maanay soo gaadhay haa waa inan da'yar haddii uu dadaalana noqon doono abwaan gabayaaya kollayto dhaliilna lama waayo go'aankana gadaal buu ka heli doonaa waa tahay aad buu mahadsan yahay horta sida uu sheegay dee waxa hadalkiisii inoo dhameeyey iyo go'aankii iyo gabaygiisa miisaankiisaba waxa inoo wada dhameeyey hore in laga wada hadlana ma qurux badna mar haddii abwaan weeyaan dee odayadii imika ugu waaweynaa buu ku jiraa maxay ahayd qiimaynta maxay ahayd markay noqoto suugaanta dhinaca weliba gabayada jiibta codka intaba marka sidaa uu sheegay odaygu ayaan ku raacsanahay waana talo runtii wax ceeb oo imika dee lays odhanayaa ma jirto qofka wixii ka dhiman unbaa loo sheegay waxa leeyahay war waxaasaa kaa dhiman soo kororso kuna dadaal baan leeyahay aad baad mahadsantay waa tahay cabdilaahi waxaa ku harsa qiimaynta maxamedowe cabdilaahi aadan waya baan u yeedho kolley de waa la dhameeyey oo si fiican bay uga hadleen oo de macallinkii weynaa baa ka hadlay hurre marka xagga maxaan ku idhaahdaa haddii de waxaa la heli doonaa fursado fara badan oo kale masalan xagga markay noqoto bandhigga dareenka kaa laftiisa waxaa la rabaa inaad bandhig markaad hadlayso eed wax ay sheegayso in dareen aad muujiso oonad iska taagnaanuun marka dee sidaa hore lagugu sheegay weeyi soo dadaal waay bismi illaahi raxmaan raxiim maxamed cabdi cabdilaahi aad baad u mahadsan tahay gabayga sidii aynu sheegaynay ama maansada waxaa la qaadayaa oo lagaa doonaya inaad waxyaabo gaara buuxiso haddii aad geftayna aanu ku xusuusino masalan gabaygaagu magac ma leey